السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتو حروا إن إذن فاسيو cardiac conduction system iyo qaabka ECG-ga oo usoo bandhigayo. Marka waa topic aad muhiimsan kuna fahan in ka yar 10 daqiiqo. Waxaan rabaa inaad concept yar ka qaadato haddaad tahay arday caafimaad barto. Marka ka hadlayno cardiac conduction system oo laga fahmayo ECG-ga كود وأنا فهنا normal conduction system كعادي قاكو ودعاء cardiac conduction system وحي كسو بلاوتا SA node SA node وسيلس كيالو right atrium كا إيو superior vena cava ماشي اسكا قلان okay superior vena cava أي انت كسو قشو this is superior vena cava opening. This is a SA node. Ama sinoatrial node. Impulse scan inta kasoo bilowday oo SA node ka waxay electrical activity siisaa ama korontooyinkeeda siisaa oo kaliya lawada atrium. This is the right atrium and this is the left atrium. Okay. maanta kadib waxaa ogaanaysaa in SA node ay korontooyinka ay siiso right atrium iyo left atrium. fiila ka mid ah ayaa waxay soo gaaraysaa nodekan wuxuu u dhexeeyaa atriumka iyo ventricleska siibo wuxuu u dhexeeyaa right atrium and right ventricle ayuu u dhexeeyaa. marka magaciisana wuxuu noqonayaa atrioventricular node. nodekii u dhexeeyay atriumka iyo ventricleska. marka waxaa ogaataa all electricalkan ama fiilooyinkan ama korontooyinkan oo SA nodeka imaanayo oo labada atrium la siinayo waxaa ogaanaysaa in aysan meeshaan soo dhaafi karin ay dhimanayaan. waxay kaliya soo mari karaan oo kaliya AV node and this AV node markay korontada soo gaarto wuxuu usii dhiibayaa bundle weyn ah oo loo yaqaano bundle of His. this waxaa loo yaqaanaa bundle of His. okay marka si labada ventricle right ventricle iyo left ventricle korontada loo gaarsiiyo bundle of His wuxuu isku kala qaybin doonaa laba branch. okay waxaa leenahay branchiga right-ka ee bundleka iyo branchiga leftiga oo bundleka leeyahay. Soomaali ahaan English ahaan wuxuu noqonayaa marka right and left bundle branch. okay right and left bundle branch and this right and left bundle branch waxay leeyihiin fibers oo yaryar oo myocardiumka gudaha u galaayo. these fibers kan yaryariska u jeedo waxaa loo yaqaanaa Purkinje fibers. Purkinje fibers. okay maanta kadib waxaa ogaanaysaa in SA nodeka ay kasoo bilaabaan korontooyinka ay siiyaan labada atrium. labada atrium markay siiyaan kadib korontooyinkan way dhimanayaan. koronto ka mid ah ayaa waxay taabanaysaa AV nodeka. AV node markay korontada ay taabato waxay usoo gudbinaysaa bundle of His. bundle of His wuxuu kala qaybinayaa right and left bundle branch. right and left bundle branch waxay usii dhiibaan Purkinje fibers and Purkinje fibers waxay korontooyinka siinayaan myocardium of the ventricles. okay marka service-ka fiiri number 1 waxay kasoo bilaabatay SA node. laba waxaa la siiyey labada ventricle labada atrium. 3 waxaa loo dhiibay AV node. 4 waxaa loo dhiibay bundle of His. 5 waxaa loo dhiibay right and left bundle branches
iyo Purkinje fibers oo ah in labada ventricle ay wax siiyaan waxay noqonayaan marka 5 ECG ga graafkiisa waxaa ku sawiran sidaan oo kale ama markaad warqada ECG ga akhrinayso halkan xabo oo la badiyaa ku sawiran marka halkan xabo aad fahanto waxay ka dhigan tahay dhamaantood waa wada fahantay marka laga hadlayo graafkan wuxuu leeyahay waves okay marka wave kan ugu horeeyo waxaa loo yaqaanaa B wave magacyada xifdi markaad magacyada xifdido waxaa ku fudaanayso inaad akhrido ECG ga ama inaad ECG si fudud ku barato this waxaa loo yaqaanaa B wave okay this wave kan oo hoos jiro waxaa loo yaqaanaa Q marmar waa la arkaa mar lama arko macnaha for example saama ka tahay wave B wave markuu saan u dhaco Q mar qaar saay noqotaa waa la arkaa laakiin mar lama arko kor iskaga kacdaa okay marka waxaad fahmaysaa Q wave inay kan this inay tahay Q okay Q kan oo kor jiro waa R kan hoos jirana waa S wave kan ugu dambeeyna waa T okay wave oo kale waxaa jira marmar la arkaayo marna la arkaynin asina waxaa loo yaqaanaa U wave hadaarto iska dhaafi kartaa okay marka meeqa soo sheegnay B Q R S T wave okay waxaa u dhaxeeya wadooyin wado walba magac ay leedahay ila fahan markan wadada u dhaxeyso bida marka inta ku eg tahay wadadan yar waxaa loo yaqaanaa waxay u dhaxeysaa B E Q as sida normal waxay u dhaxeysaa B E Q ay u dhaxeysaa wadadan laakiin Q maadaama marmar la weynayo iyada lagu magacaabayo waxaa lagu magacaabaa R waxaa leenahay wadadii u dhaxeysay ama jabkii u dhaxeeyay ama segmentii u dhaxeeyay B iyo R waxaa leenahay B R segment okay wadadan fiiri waxay u dhaxeysaa S iyo T sida ku qaaday S T segment okay marka B wave wadadan BR segment QRS complex ST segment iyo T wave intaas waa muhiim magacyada inaad sidoo u xifdido okay waxaa jiro intervalkan wuxuu ka soo bilaabaa B wave inta ka soo bilaabaa fiiri inta ilaa iyo inta ayuu gaaraa marka waxaa leenahay B oo ka soo bilowday R oo ku dhamaaday waxaa leenahay B R interval okay magacyada markaa xifdo waxaa ku fudanaysa hadda waxaad fahmaysaa qaabka wadnaha muxuu ahaa electricalkiisa looga akhriyay ECG ga waa seexiye wadnaha kani waa right atrium left atrium right ventricle left ventricle ila socya manaa wadnihiisaan oo ahaa hadda waa jiifiyey si macnaha ECG ga aad adigu ugu fahanto okay kan wuxuu ahaa SA node kan wuxuu ahaa AV node kan wuxuu ahaa bundle of his and this wuxuu ahaa left bundle branch and this wuxuu ahaa right bundle branch okay ila fiir marka korontada waxay ka soo bilaabataa SA node then waxaa la siiyaa labada atrium
labada atrium marka la siiyo kadib waxay soo dhaaftaa AV node. AV node markay soo gudubto kadib waxaa la siiyaa labada ventricle kadib way isku dhamaatay. marka wave kan muxuu noo ahaa B wave, kani segmentiga muxuu noo ahaa BR segment, kan muxuu noo ahaa Q, kani muxuu noo ahaa R, kani muxuu noo ahaa S, kani muxuu noo ahaa T, segmentigana muxuu ahaa ST segment. okay, sawirka adoo fiirinayo meel walbo waxa ku magacaaban fiiri. for example marka korontada kasoo bilaabatay SA node, B wave intuu ku sawiran yahay ustaad, B wave wuxuu ku sawiran yahay labada atrium. marka maanta kadib waxaad ogaanaysaa in B wave ay leedahay labada atrium. okay, B wave waxay ku sawiran tahay labada atrium. maanta kadib waxaa ogaanaysaa in B wave ay leedahay labada atrium. haddii B wave wax ay ka qaldamaan, haddii B wave wax qaldan aad ku aragto, waxaad ogaanaysaa in labada atrium ay dhibaatada ka jirto. okay, this BR segmentina waxaa leh maanta kadib AV node. haddaad aragto BR segment oo wax ka qaldan, waxaad ogaanaysaa in AV node ka dhibaato ay ka jirto. okay, wixii ka dambeeyaa leh fiiri Q, R, S, ST segment, T wave, all of these outject waxaa leh ventricles. marka haddii intaana waxaa ka qaldamaan waxaa wax ka qaldan labada ventricle. okay, insha Allah waa qaadan doonaa dhibaatooyinka ka taagan labada atrium, dhibaatooyinka AV node ka, dhibaatooyinka arrhythmial iyo myocardial infarction ama ischemic heart disease iyo waxyaabahaas oo kale ayaad ku arkaysaa. okay, ila dhegeys marka markay labada atrium ay sameynayaan contraction, waxaa arkaysaa B wave. markay labada ventricle ay sameynayaan contraction, waxaad arkaysaa Q, R, S complex. T wave waxay ka dhigan tahay waxaa labada ventricle ayaa waxay sameynayeen relaxation. okay, contraction means depolarization. Depolarization markuu dhacayo B wave ayaad arkaysaa of the atrium. Depolarization of the atrium waa B wave. Depolarization of the ventricle waa QRS complex. Repolarization of the ventricle waa T wave. marka su-aasha isweydiinta mudan ayaa aaway relaxation ama repolarization of the atrium. labada atrium macnaha waxaa ku tusay oo keliya depolarization ama contraction oo keliya ku tusay. aawayhe repolarization lama arkaayo ECG-ga laguma arkaayo repolarization. why? sababtoo markay ventricleska ay sameynayaan contraction ama QRS oo sawirmaayo waxaa ahaa labada atrium ayaa waxay sameynayeen relaxation ama repolarization. marka labada ventricle ayaa xoog badan oo qarsamaya repolarization of the atrium, marka garaf ahaan looma arkayo. okay, maanta kadib macnaha wax concept waad ka heshay wax loo yaqaano conduction system of the heart iyo understanding ECG. marka wixii cudurro iyo wixii qaabka kale loo akhriyo waxyaabahaas kale insha Allah casharadaena imtixaanaha ayaan ku soo qaadan doonaa.